Assalaamu calaykum. Sidaan la socno ciidamada Israa'iil waxay ka dagaalamayaan gudaha magaalada Gaza gaar ahaan Jabaaliya. Maanta oo Khamiis ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha 10aad waxaa la soo warinayaa in jugtii ugu cuslayd la gaarsiiyey ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya gudaha Jabaaliya. Welibana la isaga hor yimid si toos ah iyaga iska caabinta Falastiiniyiinta dagaal toos ah ama weji ka weji la isaga hor yimid. haddaba sida ay iska caabinta Falastiiniyiinta ay sheegeen waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil oo gawaarida gaashaaman ama gawaarida loo yaqaan Hammerska ee Mareykanka uu farsameeyo iyaga oo meel maraya in miino loo dhigay. Markii gaarigii miinada ay la qaraxday qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa gawaaridii ka degay kadibna guryo ayay ku carareen. Gurigii markii ay ku carareen sida iska caabinta Falastiiniyiinta ay sheegayaan ayaa gurigii wuxuu ahaa guri zona minata ah oo miina ay ka buuxdo. Kadibna gurigii ayaa haddana lagula qarxiyey. Intaa kadib si toos ayaa la isaga hor yimid. Maanta waxaa ka dhacday laa mafara meel loo carar ma laha, maqraj dhan ayaa la waayey, meel ay ka baxaan ayaa la waayey sida markaasi iyaga laf ahantooda iska caabinta Falastiiniyiinta ay sheegayaan. Weliba muuqaal ahaan Al Jazeera ay ka diyaarisay. Halkaas iyadoo ay dhibaatadii ay taagan tahay ayaa haddana laba ka mid ah gawaarida loo yaqaano ama taangiyada loo yaqaano Markava ayay iska caabinta Falastiiniyiinta halkaas iyagana ku karbaasheen. Waxa maanta ka dhacay Jabaaliya waxaa la soo warinayaa in nimankii karbaash iyo washaanka iyo washinga meesha ay ka dhacdo hoob bariiska iyo hoob baastada. Run ahaantii wax lala yaabo ayaa meeshii ka dhacay ayaa leeyahay. Muuqaal ayay Al Jazeera ka diyaarisay dhammaantood idinma soo wada gudbin kara laakiin qayb yar ayaan markaasi idiin soo gudbinayaa kadibna waxaan idiin soo dhigi doonaa qaybta Telegramka insha Allah. Muuqaalka u jeedaan waa ciidamada Israa'iil oo markaasi gaarigaas ayaa miina la qarxaday kadibna si toos ayaa la isaga hor imaanaya. Saad u jeedaan si toos ayaa labada dhinac ay markaasi isaga hor imaanayeen. Muddo ay dagaalamayeen meel ay u cararaan ay weyn. Ciidamadii guri ay galeen gurihiina waxay ahaayeen kuwa ay miina ay ka buuxdo. Gurigiina dhulkii ayaa lala dhigay. Kadibna si toos ayaa la isaga hor yimid oo saad u jeedaan oo ciidamada iska caabinta Falastiiniyiinta waxay tooganayaan taangigii. Muuqaalka lama ogola, taangigina sidaas ay ku qarxayaan. Marka maanta waxa ka dhacay gudaha Jabaaliya waxaa la leeyahay waxay ka mid tahay casharadii ay tan iyo 7 Oktoobar ay ku qaadanayeen gudaha magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa qayb ka mid ah maanta iyagana ay qaateen casharada chemistry-ga iyo physics-ka. Dhanka kale sida warbaahinta Israa'iil ay tabinayaan waxay sheegeen 130 ka mid ah ciidamada Israa'iil inay iska diideen in dagaalka gudaha magaalada Gaza ka socda ay ka qayb galaan. Ciidamadan ayaa sida ay Israa'iil warbaahintooda ay sheegayaan waxay sheegeen in Netanyahu uu ka saxiixayo heshiiska isweydaarsiga maxaabiista iyagana aysan dagaalkan aysan ka qayb gali doonin. Iyadoo aan la socono in dagaal culus uu ka socdo gudaha magaalada Gaza gaar ahaan Jabaaliya oo u dhaxeeya iska caabinta Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil. Marka 130 kan ka mid ah ciidamada Israa'iil waxay taagan yihiin dagaalka kama qayb galino inta dad maxaabiis Yuhuud ah gudaha magaalada Gaza loogu haysto. Iyagoo arrinkaas ku macneeyay sababta loo tababaray inay tahay inay difaacaan dadka Yuhuudda inaan loo tababarin in ay laayaan dadka Yuhuudda. Marka Netanyahu qorshihiisa waynu fahmi la'sanahay ay taagan yihiin. Waxay taagan yihiin ma waxaynu laaynaa dadka gudaha magaalada Gaza lagu haysto ee Yuhuudda ah. Marka waxay diideen ama amar diida cad ay ku sameeyeen amarkii Netanyahu ahaa in la duqeeyo meel walba oo markaasi loogu shakiyo in iska caabinta Falastiiniyiinta ay joogaan. Marka arrinkan kuma cusba Israa'iil oo waxaan la soconaa tan iyo markii uu bilowday 7 Oktoobar dagaalka in qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil ku waasheen gudaha magaalada Gaza qaarkoodna markii iyagoo dhaawac laga soo saaray oo la isku dayay in dib loogu celiyo ay iyaga dhexdooda istoogteen oo markaas iyagoo ka cabsi qaba dhibaatadii horey ugu gaartay dagaalka mid la mid ah inay haddana ku laabtaan. Ciidamada Israa'iil waxaan la soconaa tan iyo 7 Oktoobar in rucbigii ugu xumaa magaaladan Gaza uu ka soo gaaray. Hadda oo wajiyo kala duwan dagaalka ay ka galayaan dhanka Xisbullah sidaas oo kale gudaha magaalada Gaza dhanka daanta galbeed sidaas oo kale hadda ay u babacdhigayaan dhanka Iiraan. Marka run ahaantii maanta wixii dhacay iyo arrinkan isku soo aaday waxay tahay
arrin yacni ciriiri ku keenaysa Israa'iil. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 dhanka kale xuutiyiinta ayaa maanta waxay sheegeen in xuutiyiinta howlgalo ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa badda Cas iyo sidaas oo kale badda Indian Ocean-ka. waxay sheegeen halkaasi inay ku duqeeyeen maraakiib halkaasi maraysay oo dhanka Israa'iil u socotay. run ahaantii marka yacni Israa'iil dagaalkan gobolka bariga dhexe uu ku sii ballaaranaya uu ku sii cuslaanaya iyadoo xuutiyiinta ay culays ay ku hayso dhaqaalaheeda oo dekadii Elliot ay ka xirmatay boqolkiiba yacni 95 sidaasi oo kale dagaal culus ay hadda ay kula jiraan Xisbullah dhanka gudaha magaalada Gaza oo muddo hal sano ah ay markaasi ka dagaalamayso wax la jiro hadda ay u babacdhigayso dhanka Iran ay leedahay dagaalka gobolka oo dhan waa ballaarinaya marka xaalad culays ayaa Israa'iil soo fuulaysa laakiin sidaas oo ay tahayna oo faarkii Netanyahu uu iska dabaalinaya laakiin jugti maanta soo gaartay ee ciidamada Israa'iil ee ku dhacday la mafar meel loo carar ma jirto waa arrin la yaab ku noqonaysa mar kale insha Allah wixii kale ka soo kordha arrinkan dib ayaan halkan idinkaga soo gudbin doonaa wargelin muhiima madrasatu tawxiid quraan online waa madrasad lagu barto xifdinta quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab online adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqo ama xitaa dalka dibadiisa madrasadu waxay u badkay dadka waaweyn baraysaa xifdinta quraanka kariimka iyo hingaadiisa tajwiidkiisa siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam madrasadu waxay ku taallaa magaalada Muqdisho wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan soo wac telefoonada shaashada kaaga muuqda wargelin muhiima ma jeceshahay waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan aadi karin xaramka barakaysan in loo gudo acmaasha cumrada bishii uu dhashay nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba haddii aad dananayso waxaa diyaar ku ah culamo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara kuwaas oo u gudaya cimrada waalidkaaga inta lagu gudo jiro acmaasha cimrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba ka faa'iideyso fursadan muhiimka ah ama qaaliga ah oo idin hayso shirkadda xajka iyo cumrada ee Al-Taqwa faafanintaas dheerna kala soo xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda halku dhiga shirkadda Al-Taqwa Xaj an Umra waa nagu dooro alla ka cabsi ammaano iyo cadayn ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 634 97 95